isweydiisay markaa fiirisi generationadeena hore maxay ugu ekaayeen saan like dad dhaadheer dhuudhuuban shape qurux badan leh cayilnayn dadka generationada hadda jirana ay ugu badan yihiin saan like dad burbuuran kaliya burbuuran calool weyn maxaa markaa anaga history ahaan hadaa fiirino Soomaali ma waxaan ahay dad genetic ahaan u haysto mise dhaxal ahaan cayil maya maxaa marka cayilka nagu sababay anaga ayeyaasheen urubraayeen maxaa anaga la burbuurinay oo ugu badanay maanta inaan cayilanahay assalaamu calaykum waraxmatullah magacay waa Canab Ciise baratay cilmiga nutritionka ayaantan research sameynayay markaa fiirisid dhalinyarada jirto iyo dadka hore marka isbarbar dhigtid dadka hore dad waxay ahaayeen fit xoog badan socod badan energy-gooda aad u badan yahay like IQ-gooda aad u sareeya xataa dad aqli badan ahaan very smart yes anaga marka maanta maxaa uga duwanahay awowayaasheena iyo ayeeyaasheena horta number 1 adduunyo waxa ku noolnahay toxic business laga sameeyo bini'aadamka maanta waxa ku dhex jirnaa masiibo qarsoon oo lagu magacaabo cayilka casriga so hadaas barbarigno awowayaasheena hore maxay cuni jireen maanta dadka hadda jirana maxay cunaan dadka hore laba qayb oo kala saareena dadna waxay ku noolaayeen cad iyo caano wax la dhaho xoolaha dhaqan jireen soo xoolahaas wixii ka soo baxa oo ahay cunto dadna waxay dhaqan jireen beeraha soo dadkaasna wixii beeraha ka soo baxo ay cuni jireen okay so maanta marka dadka hadda jiro maxay uga duwan yihiin just Soomaaliya ka hadloonaya maanta waxa waaye dadka inta badan miyiga way ka soo guureen kuwa oo miyiga degan cunto waxa loo geeyaa magaalada ka tagtay sida sonkorta waa loo geeyaa burka cad waa loo geeyaa qamadi dibadaha laga keen waa loo geeyaa dadka ayagoo wadankooda wax ka soo bixi karo dad ma aha dadkii hore waxay ahayn dad aad u dadaal badan dhulkooda wax ka soo saarto laakiin dadka hadda waxa waaye dad aad leysi oo dhulkooda wax ka soo saaran isku xiro wax dibadda ka imaada wax soo saarka wadanka aad u yar yahay so more wadankaaga wax soo saarkiisa yar yahayna waa more oo quality-ga caafimaadka wadankaas u dhumaayo iyo dhaqaalahaba okay marka ka hadalno cuntooyinka Soomaalida ee u badan tahay cunto oo sababa cayilka dhaqan ma u leenahay maya totally cuntooyin aan dhaqan u leenahay ma aha maxaa dhacay inta badan waxa waaye bur cad sonkor dibadaha noolaga keeno saliidaha waxa ugu weyn oo dhibaatada Soomaalida ku hayso oo saliidaha cadcad oo looga keeno dibadda saliidaas waxa ugu badan oo calories oo jirkooda soo galo oo Soomaalida cayiliyeen waa saliidaas waxa laga yaabaa in saxankaas uu u badan yahay carbs u badan yahay bariis ka buuxo in yar oo hilib gaaska saaran yahay laakiin faatka saxankaas ku jirto waxaas dhan ka tiro badan nafaqada uu qofka heli lahayba faatkaas ka tiro badan oo waliba faat negative maxaa dhacay faat jirkeena u baahan yahay oo waxa jirkeena nafaqo hormoonskeena ku shaqeeyo jirkeena ku shaqeeyo maskaxda signaalada la diray ku shaqeeyaan wax kasto faatka u baahan laakiin faatka cuno iyo faatka awowayaasheena cuni jireen ma islaha faat xoolaha ka soo baxay faat nadiif faadi ogihiin cuni jireen ayna wax badan isku qasaynin kadibna gubayaan soconayaan laakiin adiga maanta markii la dhaho nafaqa ahaan faat waa u baahan tahay laakiin saliidahan cadcad cayil uu imaanaya waliba saliidahan omega 6 dabka loogu talagelin aad dabka saaraysiin ogaada jirkaaga dhibaato ku noqonaysa waxyaabaha maanta dadka inta badan ku sababo cardiovascular disease oo rag badan ayagoo gaarin 70 sano ee wadnaha u istaagaan soo dhibaatada weyn ku nahaysato jiilka maanta jiro waxa waaye carbs badan oo overload loo cunaayo saxan oo isku dheelitirneen proteinka ee awowayaasheena u badnaayaan waa yar yahay saliidaha maaragtay isticmaalayno oo calories badan jirkeena gelinayso oo ayadana dhibaato nagu cayil iyo toxic ba jirka ku so anaga waxa ugu weyn oo dhibaatada nagu hayo waxa waaye sonkor
iyo saliidaha cadcad. Awoowayaasheena labadaas way ka badbaadi jireen generationadii hore. Ee ka hadeertan awoowayaasha xataa baadiyaha joogaan way cunaan. Saas darteeda maalin walba magaalooyinka loo keenaa dhaqaatiirta dabcan way la socdaan Soomaaliya joogo dad badan oo miyiga ka imaanayo oo kansar hayo. Dadkii hore generationka hore maxay kale ku kala duwaneen markay noqoto oo ka dhigi jiray dad dhuudhuuban. Dad waxay ahaayeen active socod badan intaasoo mayl jiro maalintii. Anagana hadeertan 10k steps al xisaabinayo maanta 10k socode waa ku faanaa laakiin ayaga meeqa socon jireen. Cuntadan waxa waaye markaa cuno waa energy laga helaa. Energygaas heshay haddii aad gubin jirkaagu dhex fadhiisanaya. That's why u cayilnaa. So adiga hadda ifiirsanaysa waxaa isweydiisaa activity-gaaga sidee waaye. Okay, so markasta xasuusnow miisaankaaga ma aha muuqaalkaaga keliya. Waa cayilanta saana u egto waa fool xuntaa ma aha miisaankaaga. Waa muraayada caafimaadkaaga. Caafimaadkaaga ka dhex arag miisaankaaga. Markaa muraayada istaagtid isku fiirisid ka dhex arag caafimaadkaaga. Midda kale mid ogow maanta inta caafimaad dareemaysa haddaa waqti u helin caafimaadkaaga, cuntadaada, jimicsigaaga, hurdadaada, everything haddaa maanta waqti u helin ogow berrito waxa u daciifi doontaa ganacsatada. Business laga sameeynaa. Pharmacy-ga adduunka waa business. Dadka xataa maanta social media jooga oo qof kasta asagoo soo baran ku dhahayo waxa ka caawinaya waa ku caateena waa business. Asoo soo baranino rabaa inuu business ka sameeyo. Adigana waxaa noqonaysaa qof daciif u qofku markuu xanuunsan yahay 100 qof u taliso. Qof kasta oo wax kuu sheego aamine. So maanta is very easy jikadaada iyo lugahaaga ay ku jirtaa caafimaadkaaga. Soo ku dadaal si uga badbaatid bari xanuunada lifestyle-ka ku imaado sida macaanka oo dhibaatooyin badan maanta dadkeena ku haayo, dhiig karka oo maanta silent killer inuu yahay og tahay. Xanuunada waxaan ugu soo barteen thyroidki, qanjirkii maaragtay dhan oo metabolismka laga xukumayo dhibaato ku dhacay. Digestive systemka ka daran dadka caloosha ka wada jiran yihiin. Okay, waxaanoo dhibaatooyin haysato jikadeena iyo lugaheena ku xalin karnaa iyo maskaxdeena. Maskaxdaadana haddii maaragtay aad u soo jeesan isbedel cid ku bedeli karto malaha. habeen walba buuq iyo dagaal iyo social media wax maskaxdaada ugu jirin walaa waxaas dhahaa nafaqada dadka nafaqa la'aanta dadka heysatay cuntooyinka qaldan la cunayo dadka mentally ahaan u dhibaataysan. That's why qofku markuu mentally-giisu deganaansho dareemin uu meelo badana dadkan Soomaalidu waxay u badan yihiin meelaha buuq ah sii aadaan more intii aadi lahayn nature-ka iyo meel niyadiisu deganaansho ku dareemi lahaay. Yes, video ayaantan waxaan ka soo hadlayaa nafaqada 10 maalmood ee nolosha ugu horeyso. qofka bini'aadamka isbedel haduu rabo waqtigu ugu fiican uu sameyn karo waxa waaye yaraantiisa in habitska guriga laga soo bedelaa. waliba caloosha cunuga markuu galo ilaa 2 sano ka buuxiyo aad muhiim u tahay in dhaqan fiican caado fiican la baro markay noqoto hooyooyinka waliba ilmihiina waxa u tihiin maraayad isku fiirin lahaayeen soo ilmihiina haydin ku daysadaan. haddii channelkan aad hore subscribe noogu saarin oo welcome noogu soo biir. inta hore igu xirnayd inta ay la joogtayna aad u mahadsantiin like and share. Thank you.